waddanka shaqalaan maadaama ay ka jirto laba su-aal isu daarana aan weydiiyo bahda ganacsatada iyo sidoo kale dowladda kaalintooda ku aadan in platform ama shaqo loo abuuro dhalinyarada ma qaateen haddaysan qaadan talada ay usoo jeedinaysaa أنا ما استفدت في هذا الجواب تي runtii conceptiga ah waddanka shaqo la'aan ka jirta hal mid ka duwan ah waddanka shaqo la'aan ka jirta shaqo la'aan ka jirta waddanka waxaa ka jira dad skillful ah oo xirfad leh oo iyagu waxna loo dhiibi karo waxna abuuri karo ayaa bimacna inta fiiri dad badan waxaa arkaysaa hadda tahriibaya oo badaha ku dhimanaya asoo jaamacad dhameeyey wax sameeyey ciladu maxay tahay ciladu inaysan waddanka shaqo ka jirin miya mase ciladu asigii ku laabanay qofkii ku laabanaysa inta badan markaan daraado samayno ciladu waxay ku laabanaysaa qofkii dhalinyarada ku laabanay asaa diyaarsanayn adig markaa dan diyaarsanayn oo suuq timaado waxaa ka qaada suuqa waxaa ka qaadaysa lana suuqaan wuxuu u baahan yahay iyo adiga xirfadaha aad leedahay skillska aad leedahay aqoonta aad leedahay ayaa kaafiya kala dhiiri ah oo kala duwan hadda maalin hore halkan waxaa igu soo booqday shirkad raadinaysa 100 qofood oo maaragtaa shaqaale ah waxayna shaqaalaha aan rabnay iyo muwaasafaadka aan rabnay mala waxaa hadda shir ku jiran oo hadda adiga aad ogtahay oo anaga aan ognahay hoteelada magaalada muqdisho ku yaalo oo dhan inta badan dadka ka shaqeeya kuuga ah dadka wax kariya iyo dadka wax sameeya xaggee laga keena oo laga waxaynayo dibadda laga wada keena oo marka ma dadka Soomaaliyeed ay necab yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed necab yihiin su-aasha maxay tahay ma nacba laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ma lahan xirfadda loogu talagalay kow labo attitude-kooda iyo qaabkay u fikirayaan wuxuu ku leeyahay waxaan waa anigu waqtigaan ka shaqeynaya waa shaqo macno aan lahayn nusiisa ma samaynaya idan attitude-ka fikirka iyo skill-kii labadii ayaa khaldan labadaas marka la bedelo waxaa shaqo ku jira qofka dhalinyarada inuu shaqo helayo ama shaqo abuuraya shaqo abuuraya ama waa abuurada haddii qofku aaminsan yahay inuu sagxadda ka bilaabo sida hadda example-ka ay sheegayo oo garagac inuu noqdo inuu asoo aqoon leh bili waxaad arkaysaa 2 sano kadib asoo ah maaragtaa halkaas male howla male laakiin dadka waxaas ma qabanayo guriga fadhilaya guriga waxa fadhilaya 10 sano oo wax isbedelaysa jirin ma ayaa fadhilaysa idan laba shay in la bedelo waa aragtida dhalinyarada iyo skillka dhalinyarada labadaas haddii la bedelo wax badan ayaa isbedelaya su-aasha qaybtaada waa saxiix dowladda iyo ganacsiga waxaa la rabay inay shaqo abuur badan sameeyaan gaar ahaan dowladda waxay saaran yihiin waddankan shaqo abuurkiisa qofka dhalinyarada haddii xataa asugu oo fikrad la yimaado ugu yaraan wuxuu u baahan yahay maalgelin ayuu u baahan yahay research aan sameynay waxyaabaha ugu dhibka badan ee dhalinyarada hal abuurka la weyn dhalinyarada hal abuurka waxaa kamid ah investment iyo maalgelin inay qaarkood ay waayeen ama sidii loogu talagalay aysan ahayn idan maalgelin iyo inay shaqo abuur sameeyaan dowladdana waa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay bahda ganacsatada bangiyada qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo dhan waa inay dhalinyarada ay sameeyaan laakiin in dhalinyaradii la qaato waxaa ku horreeya dhalinyarada in lasoo diyaariyo أنا ماشي الفوكس كسرة وحوى لما يرد إلى دياسيهم الفكر أهان إلى دياسيهم حرفة أهان إلى دياسيهم مركز أما شغل أمورية أما ماركتي أو الشغل كبيرة لا بأس إنه يسميه لكن لما بس من الأول كان اللي يرد إلى يسميه لا بأس أنا جيلا أفضل فلو عاد تراهدو أما عاد سبسكرايب سارتو برتا يوتيوب كاينو كلنا